asaagay kabihii iyo boorsadii bay ragooda u qaadayaan isma dhaamaan oo maxay ka dhibaysaa ma wax culus buu ka qaadayaa mee waa waxaa yaray fudud iyada ma dhaama haddaba oo siduusan u dhaamin dharkayga haddaad xidhato maxaa lagu dhahayaa dee nin bay noqotay sidaasuu isna ku noqday haddaba oo haddaad ii qaato maxaa ku helaya adigu ma nin baad rabtaa mise nin raga dee maya nin raga raganimadaasaa ka baxaysa haddaba meesha see uga baxaysaa soo fadhiisa anaa ku fahansiinaya waxay uga baxaysaa anaa ku fahansiinaya marka koowaad horta ilaahay ragga iyo dumarka wax gooniyuu u kala sameeyey heer la gaadhay weliba ninku dumarka waxa loogu talagalay haddii uu isticmaalo in nacladii ay ku soconayso ilaa intuu iska bixinayo taa marka laga yimaado gabadhii damiir leh ee ninkeeda sharaftiisa doonaysa ee raganimadiisa doonaysa ee inay madaxiisa kor u qaado doonaysa ee inaan lagu ceebeen iyadu wax ay leedahay doonaysa horta uma dhiibto wax iyadu ay leedahay iyadu waxay leedahay baa sii kala fiicane waxbaaba la isdhahaa rag iyo dumarku way isla leeyihiin boorsadii gabadhu goonida u ahayd suuqa nin marayo boorso wata miyaad aragta gabadhii boorsada goonida u ahayd iyo kabaheediiba gacmahay u saartay daba qaadno way ku tiri ninka raganimada markaa u hadhay maxay tahay waxaan rabaa adiga inaan ku fahansiiyo ninkaagu sharaf wuxuu ku leeyahay intuu adiga kaa duwan yahay waxaadan adigu isticmaalin inta uu isagu ka fog yahay buu sharaf ku leeyahay haddaynu dharkiis la isticmaalno kabihiis la isticmaalno boorsooyinkii aynan kala duwanaanee aad kuu qaado oo dee maxaan ku dhaamaa markaa balaadaan kuu dhiibay adiga maxay kula tahay aniga waxay ila tahay hadda waxaan arkay baan kuu sheegayaa hay gabadh xaflad joogta ninkeedii kabaha u qaadayo boorsada u daba wado iyadna xafladda iska xayaadayso waan gartay marka anugu imiga waxaan ka wadaa inaadna saasoo kale ii samayso okay waxaad ka eegtay halkii adigu dantaadu ku jirtay suusaa maa dantaada waxaan ka wadaa inaad iska xayaado xafladda iska socoto culays dareemine aad kabihii iyo maaragtay iyo boorsadii iyo aad dee ninkaagii ku rarto adigu markaa iska nafisto dantaasaad ka eegtay soo maaha nafiska okay ma dareemaysaa culays sharaf xumo ah oo ka badan kii adigu aad iska dejisay inaad ninkaaga saartay ma dareemaysaa waxaan ka wadaa aan ku fahansiiyo meel dhow culays baad iska dejisay alaabeed laakiin culays sharaf xumo ah baad saartay ninkaaga boorsadaada lagugu yaqaanaa adaa dumar baa loogu talagalay nin aad leedahay waa ninkaygii ragga ahaa ee aan ku faanayay baad gacanta u gelisay ka qaadayaana ma dhaamo oo ma dhahayo dee waxaanaad adeer ii dhiibaysid dee waa sharaf xumo iga dah nin baan ahay waa ka uu hadalka wanaagsan hadaanu maaragtay dee meel fogba la gaadhin ka qaaday ma dhaamo waxaan u leeyahayna waxba kama duwanaa maanta haddaad dharkayga intaad xidhato bannaanka ugu baxdaan ogolaado dee xaaskaygu waa ila mid weeye haddaan dharkaaga intaan anigu xidho aad ogolaato bannaankaan ugu baxana dee damiirkayga marka laga yimaado damiir xumadeeda dartii intaan anigu xidho bannaanka u baxo adiguna aad igu raacdo dee ninkaygu aniga ima dhaamo waxba ogaada weeye marka maya mabtaan ku fahansiinaya cabaas dharka waa wax weyn waa pointi weyn dharku inaad dharkayga xidhato oon dharkaaga xidho oo wax ceeba ma fahanti laakiin boorso aniga agteeda easy bay ka tahay hadda dharka iyo boorsadu waa isku mid siba boorsada sii hadda dumarku inta badan ragga way iska xidhaaba dharkoodu jeemisyo meelaha iyagoo iska xidhan baa la arkaayo garamadihii iyo jaakadihii iyo inta badan fanaanadii way xidhan yihiin be laakiin boorsadu way kasii xag jirtaa khaas boorso dumar baa loogu talagalay gacan lagu qaato lalaalaadsado inay wax ku ritaan baa loogu talagalay inay wax kusoo dhaweystaan baa loogu talagalay moobiladii waxa inay maaragtay ku ritaan waxyaabaha makeupkooda yaryar inay ku ritaan iyo waxaasaa loogu talagalay sidaa daraaddeed wixii uu gabadhu caanka ku ahayd lagu yaqaaneen muran ku jirin ninka qaadaa sharaf xumo meel
meeshii u dambeysay uu ka bilaabay waa sidaan waan aaminsanay markaan waxaan kuu sheegayaa sharaftaada iyo sharafta ninkaaga waxay ku jirtaa inaad kala duwanaataan adnaad gabadhnimadaada ku faanto wixii gabadh loogu talagalay isticmaasho ku ekaato aniguna aan raganimadeeda ilaashado sharaftayda ilaashado dharkayga laygu talagalay isticmaalo kaa duwanaado deetana aan ma aragtay dee igu fahanjid anaa raganimadeeda ku faano ma fahanti si fiican marka sharaf kuma jirto inaan boorso kuu qaado sharaf kuma jirto inaan kaba kuu qaado sharaf kuma jirto in aan adiga wax kula isticmaalo haddaanan kula isticmaalinna aan kuu qaado wax u arki waayo kan boorsada wado waa inaan u arka dee inaan wax dumar wado ti ilaahay inaan naclad ku socoto marka laga yimaado qofka waa inuu horta raganimadiisa iyo meelahan dhadhowday ka fikiraa horta igcaba saxan ku fahansiinaya ninku inuu boorsada saa u qaado koo iyo inuu garab ka sudho keebaa sharafta aada weyna horta Soomaali waxay tiraahdaa ood qaadis iyo jiidid waa isla gurigeyn oodda haddaad soo jiiddo markaad soo qaadayso iyo haddaad intaad kor u qaaddo dhabarka soo saarato soo gurigeyn maad keenin waa isku midee sidaa daraaddeed haddaad boorsadii gabadha laalaasato iyo haddaad garabka saarato waa muhiimaddu waa qaaday hebelow waad sidataa weeye laakiin su'aal kalan qabaa gabdhaha ugu badaneen arkay hadda inta muuqaalan arkay tira male gabdhaha ugu badanee aan arkay wax qofsa u fikiraya ma laga waayo maxay ugu bateen social media hadda inta ugu badan waa saase maxay ugu bateen dadka hadda social media ku jira ee lamaanaha ah inta badan dad aad u fiican wanaagsan baa ku jira dad sharaf iyo diin leh baa ku jira ma wada dhaleeceynaan laakiin dad badan waxaa jira aan u fahmay anigu inay dan isku qabaan dantii guurka iyo reernimada ka weyneyd inay isku qabaan maxaan u leeyahay gabadhaada maalintaad guursato mas-uuliyaddeedu aday ku korta sharafteedu aday ku korta ilaalinteedu difaaciddeedu aday ku korta intaa haddaad ka adkaan weydid dee wax kaloo reeru sii dhismo oo sanado badan sii jiro caruura soo kordhaan mas-uuliyado dhibaatooyin xaalado dhaqaale wax aad xamili kartaa ma jirto gabadhaada maanta haddii wax sharaf xumadeeda kor u qaadaya oo sharafteeda dilaya aad adigu ka taageerto maxaa ka mid ah gabadhaada inaad timaam soo qaawiso markaa suuqa la soo aadaysa ama xafladaha la soo aadaysa rag baa buuxa dad badan baa buuxa sharafteedii bannaankaad keentay dharkeedii waa dhar khafiifa wax u qarsan ma jirto gurigeeda inta markay joogtay intii ay xidhneed bay ku xidhan tahay wax haba yaraatee kuu qarsan ma jirto iyadii waad qaawisay oo dembigeeda abaa iska leh dad iyo rag baad dhex keentay oo dayuus baad noqotay abad keentiido bulshadu meelaha iskugu timaadaaba jiro wanaagsane iyadoo tima qaawan oo dhar khafiifa xidhan baad keentay waxay la macno tahay inaad tiraahdo warkaale guriga soo galo gabadhaydu halkaa iyadoo maryo khafiif wadato iska caadiya soo fadhiista fadhigoo shaaha cabo oo iyadna halkaa same case wey waa isku mid marka dad badan oo dan ku wada jooga social media jira dantu waxay noqon kartaa views na daawada xaaskaygu waxaan u qaawinayaa un attention badan in maaragtay ay hesho dad saasa jira views dartiisa u sameynaya waxaa jiroo kale dad maaragtay aan dan gabadha ka lahayn waxaad danta ka leedahay waad ilaashanaysaa reality waa wax laysla hubo waxaad danta ka leedahay waa ilaashanaysaa lacagta maxaa jeebka iyo saadadka iyo bangiyada loo geenaya dan baad ka leedahay marka xaaska haddaad dan ka leedahay waa ilaalinaysaa ilaalinta waxaa ka mid ah jidhkeeda inaad asturtid timaheeda asturtid sharafteeda asturtid sirteeda asturtid rag qaar baa ka sheekeeyo xaaskaygu waa sidan iyo waxaanay tiriyo war waxaad ka sheekeynaysaa waa sharaftaadii
sharaftaadii baad ka sheekeynaysaa nin sharaftiisa ka sheekeynayana anigu waxaan u arkaa nin dee maaragtay weliba waxyaaba la yaabay waxay ka mid tahay nin isagu isu quuri waayey inuu isqaawiyo oo nigisir suuqa iskaga soo aado garma yaro fiina ama fiina qaawanaan iskaga soo aado inuu isu quuri waayey gabadhiisa hadduu quuray weliba iyadu jidhkeeda dhan wada cawraa isagu in baaba cawraa gooniye isagoo loo baneeyey welibana gara in qaarkiisa sare la qaawin karo hadda ninka isagoo loo baneeyey weliba aan cawradiisu halkaa xudunta ka bilaabmata haddana soo qaabin waayey xaaskiisii timaheedii la yiri intaa iyo wejiga keliya ka soo unbalidii ogoliya isagu wuxuu xishoonaya haddaad tira haddii la idhaa lacala halkaa ku mar garmad la-aan wuu xishoonayaa ma mari karo xishoodkaasi waa ka haddaba dadka rogay xishood la-aantaas marka aan kula dardaarmaynaa dadka wacyigelin ahaan markaanu eegno waxaan dadka kala dardaarmaynaa war nin yahow raggan anigu eedda saarayaa dumarka ma saaraya gabadhu aad bay u jilicsan tahay haddii ay hesho nin saxa oo maamula gabadhu sideeduba aad bay u jilicsan tahay haddii ay hesho nin rag ah oo si sax ah u maamula oo sharafteeda ilaaliya oo wax uu sheego waaniya oo mustaqbalkeeda ka fikira oo jidhkeeda astura oo afkeeda kantaroola aad bay u jilicsan tahay dumarku aad bay u naxariis badan yihiin hadday xataa kaa dareemaan inaad naftooda aad ilaalinayso sharaftooda ilaalinayso iyaga ka taxadirayso iyaga aad xiiso iyo rabitaan iyo jacayl iyo wax aad u muujiso ka taxadir iyo lex jeclo ay kaa aragto waa easy inay ku maqasho marka anigu raggan eedda saarayaa waxaana u saarayaa kaalintooda raganimo ee control iyo mas-uuliyadnimo iyagaa ka baxay gabdhihiina markaa freedom bay noqdeen gabadh freedom noqotana waa aad bay u sahlantahay meel kasta ka dhacdo intaas baa muhiimadu tahay mar walba in laga fikiro maxaad ku daraysaa wax walba dhamaysay pointi aan ka hadlaba garan maayo boorsadii iyo kabihii iyo wixiina waa la laabtay waad mahadsantihiin muuqaal kan lamid ama kasii qurux badan oo cusub intaynu ku kulmi doono insha allah biidni illah waxaan igaga tegaynaa asalaamu calaykum